erayga jecel marka la maqlo waxa uu ruux walba xasuusanayaa jacaylkiisii ugu horeeyey iyo qaababkii uu ku fashilmay isagoona ka aaminay in jacaylka maanta jira uu yahay mid aan waxba ka jirin. haddaba maxaa sababa in jacaylka maanta fashil ku yimaado muddo yar kadib marka uu socdo? maxaase loogu gudbi karaa oo xal u ah in jacaylka maanta fashil ku yimaado? laba ayaa u sabab ah. tan koowaad, labada lamaane oo midkood uusan diyaar u ahayn inuu xiriirkaas laga miro dhaliyo sababo jira awgeed. haddii aysan labada lamaane diyaar u ahayn isfahamkooda kadib in ay ka xaroodaan magaalada oo ay is-aroosaan, waa dhib lagamana guulgaaro xiriir waqti dhumis ah. waxaanse dhihi karnaa jacaylka maanta jira in laga guulgaari waayo waxa u sabab ah in labada lamaane sii bararku aysan diyaar u ahayn guurka oo tabartiisu gaarsiisnayn meesha uu ku haminayo. tan labaad, waxa u sabab ah in fashil ku yimaado labada lamaane jacaylkooda. midkood waxa uu la socdaa qof kale, waxa uuna jecel yahay inuu mar walba xiriir cusub oo xiiso leh bilaabo. taasna waxay keentaa qalbijab iyo xiisaha oo cumrigiisu soo dhammaado. waayo qofka la haasaawaya laba qof mid uun ayuu niyadda wada siinaya, berina niyijab ayaa ku dhacaya. adigoo dhab u jeclaana waxaa imaanaysa inaad ka dareento been badan iyo inuu wakhtiga kaa lumiyey. haddaba qodobadaas iyo kuwa kale oo badan ayaa sabab u ah in labada lamaane xiriirkooda mar walba fashil ku yimaado. haddii la iska ilaashana waxaa imaan kara hor u socod iyo guusha jacaylka. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo usii sheergareynaya. haddii aad nagu cusub tahay si aysan kuu dhaafin muuqaaladana xiga, fadlan channelka subscribe saar. wixii afkaartiina waxaad inoogu soo gudbin kartiin xagga commentiga. waad mahadsantihiin dhammaantiinaba.